ومركل برنامج كان حكايات قصوين كمرتدى هي مادة يشي كذا إنه لها كنت الشيكية شيكو برنامج كان شيكوين كواحد كسوت بنا وكطا وطان وسحيل ولا سعوتان سومال نيوز تي في وهم مدرسة كل كنا ويقع في مركز كان برنامج كبلابي نوان ذي لها هاي لابنا بلنتنا خصوصا هذا كل كنا واحد بلنتنا تاي مركز كسو دبرتان هذا الحين تقبيالات كسو هيدكتان ونست شاتك إذا كو عريسنت ما زال الذي نفيتك هكولا دعينا عروتين عرضا سوقاتها كنت الشيكية شيكو قرار كان كسمية شيكوين كان لما كان بدون خريستو إذا كو فرحسن سيحضا برنامج كان هذا وما بدأ الشيء إنه كل كنا ولا بدأ شيكان الذين هي تهرب وحال كل كذا اللي وما بدأ هي وما بدأ باهلي الله با إيه ما باهي بني آدم شركيس حبناها إلهي كأبوري متسيادة أما الله باهي متشركي ويسسي كلام مهم سيين مسكحبو وحبنت أوقالسا شركينا وابنها إسن الله ترتما وعن كدعين وحقبت كمسكحبة يفائدة يقيبه هذا كالدون وحي من ودينينا أقوي يهندنا تخاتيرتنا يا علماءنا بايولوجيا هسي شيء كذا نوحي كو أرورتا إذا ما إذا ما هدين يقولنا قلبك السيء أدونك هديهن ميليتري أما بوليس أما أسلوب أما قيبها كلا إذا ما ضلوا قيب يبا waxay leeyihiin xeerar u gaara oo ay kaga duwan yihiin shaqaalaha rayidka waxay leeyihiin wax loo yaqaan discipline oo xeer lagu maamulo waxayna ku shaqeeyaan awaamir ay qaataan amarka askarigu waa inuu qaataa si kasta uu qalafsan yahay haddii uu markaa qaadan waayana isaga ku xilmeeya markuu fuliyo amarka ayuu dacwoon karaa haddii uu amar qaldan yahay haddaba askartuna waxay ku sii kala hormartaa way darajooyinka ku qaadataa oo horumar ku gaadhaa iyo sumcad ay ku gaadhaa waxa weeyaan si ugu dhagan nugushay awaamirta madaxdooda ay siiso nin askariya oo isagu ragga waliba askarta ugu aqoon badnaa ayaa wuxuu ahaa nin awaamirta aan sidooda u qaadanoo murma saraakiishana had iyo jeer ay murmaan darajo kastuu qaato inta aan talabaad aan la gaadhin ayaa laga qaadi jiray sababta looga qaadi jiray waxay amar madaxeed oo uu diiday ama shaqo loo diray oo fulin waayey dood uu ka dooday arrin loo diriyay ciidamada guud ahaan arrimahaasoo dhan baa ku keeni jirtay amar diido iyo nin markaa had iyo jeer darajadiisa ka naaqusto ninkii ayaa haddaba maalin maalmaha ka mida isagoo dhugdhugley waa moota isagoo wata oo shaqadii ka soo dhawaxay shil galay madaxa dhaawac weyni ka gaadhay waa sheeke dabeedna waxaa la geeyey dhakhtarkii qalliinka ayaa shaqadiisii qabsaday maskaxdii buu soo saaray oo uu tallaagada geliyey takhaatiirta raallaha inaga ahaadeen sheekadeenna halkaa ka arooraysa wuxuu ku qoray waraaqbu markaa kutusa kaga saaray magacii askariga oo saabsan ahaa iyo darajadiisii ciidamadu ka tirsanaa lafihii buu ka guray madaxii waanu daweeyey wuxuu ilaabay dhakhtarkii inuu ku celiyey maskaxdii wuu bogsaday askarigii dabeedna uu ka baxay dhakhtarkii muddo kadib dhowr sannood kadib ayaa tallaagadii isaga oo baariya dhakhtarkii wuxuu ka helay maskaxdii askariga waa sheeke wuu nahay markaa dhakhtarkii telefoon buu u diray askarigii xeradiisii wuxuu yidhi waxaan u baahnay askariga magaca iyo magacaale xeradan ka tirsan ninkii telefoonka qabtaa yidhi ha qaldamin taliyaha markaasuu waxaan doonayaa askarigii saajinkai caynka ahaa ee beriga caynkaa shilka galay aan maskaxda ka qalay markaasuu yidhi waa korneylka xerada xukumada isagaa noo taliya markaa bismillahi raxmaan bal ii gudbi dhaqsi ugu gudbiyey telefoonkiibuu ugu dhiibay markaasuu soo hebel ma jeed waaniga raalli ah waxaan lahay ninkii dhakhtarka ahaa berigii ku qalay maskaxdaadii baan hayaa walaa dhaqseeyii soo gaadh meel baan ka dhacay aan kuu geliya maskaxdaadii mas-uul uma baahniba waaban ka raystay buu yidhi askarigii baa yidhi mas-uul maxaa dhacay markaasuu waa bahashii awal muranka aan kula muu jirin madaxda igu kalifi jirtay iyo darashada layga qaado markaan askarnimada ka baxaan soo doonanaya yahay buu mas-uul hadda maxaad ku fikeraysaa taliyahayga maskaxda taliyahaygaan ku fikeraya uma baahniy buu hadda xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maadda iyo sheekada inoo dhaxa haylaabina ballanteenna madasha aynu ku kulmaynaa waa Somali News TV taladeedana qaata markaa qaad ka soo hidigtaan hadal haynta qabyaaladda iyo siyaasadda naxligeeda idinkoo caradi balsana qaladiina ku hoyataan ha kula dhicina camalka caruurtiina iyo dumarkiina soo qaada konton sheeko buugga sheekooyinkan ku qoriyeen laba ka mid oo akhriста idinkoo faraxsan seexda taana u dabiiba sheekadeena labada dhaqaaqina ee iyo maanta idin haya halkudhigeeda iyana waxa la laba kala daran
والله بكرة ترى من ريرمية أيام مقالة يمي هالجيشة وهو تلبا أهمنا مركب قيمة ونكسون بالله سيستي سيور ديو ربع شادو عوني شريه وحصوقات الربع يفلر يقول لور ديه أيوب لفر يستمر شاد كلو عنو إن القرى شوك تمركا وقلك هربا إن أنت وشاها كرني سو مركب هذا الله markuu laba qor cunaya oo marqaamay qorigii saddexaad markuu marayana waxa uu uga sheekay reerkoodii oo dhan inantan shaaheeday karsanaysa oo dadka ka iibsanaysa ay hadalkiiba ka guruweyd isagoo cabursan ayaa waxa uu yimi nin kale oo isna ay ku soo raagtay foofka aqaarto oo reer magaala oo casar kadib soo fadhiistay meeshii dabadaba intaan dhigmo ku soo dorkeen waa nin marqaansane oo inaan hebel baana nin reer hebelaana meel heblayaan ka imi laba neef oo ariyal magaalada la imi qiimo wanaagsan bay ii baxeen adiguna qolamaatay mas waa magaalo meesha reer la isugu waraystu ka yiri hebel baa liya xaafadan golsanaan degana xaafadaha la isweydiiyay albaxo waxaan ka baxay markaasuu haddaba inaad qaadkii baad marqaansanaay waxa la sheekaystaan waayaan ku waramay buugii dhawitaan uga meel heblayaalna allah meel heblaayo annagoo naala oo gu wanaagsan intuu roobku isqabsadoo daay ayaa hal jeclaayo heblaayo la odhan jiray goorfiida geeliyo markaa reerka dushiisa fadhiya ayaa libaax meel ka yimuuyo duulaya hashii ku fadhiistay intaan soo ordaynaa qoorta jabiyey hashii baa dhimatay habeenkii ka fudsinay hashii oo qalanayo laakiin muraad dilaa baa seexan waay subaxii baan qaatay waxaan qaatay buu yidhi tuuri saddex geesa oo soofa raadkii libaaxan qaab si aan u daba socday baan tegey geed weynuu libaaxa ku jiro halkii kabinka ayaan jilba joogsaday libaaxii waana kaabul u hurdaa dhagax baan ku tuuray libaaxii ayaa toosay arkay go-aygii baan gacantaa bidix ku duubtay go-aygii gacantan waxaan ku qabtay tooreydii dhagax kalaan ku tuuray libaaxii markuu soo booday ayaan afka gacanta u geliyey markaasuu miyaanu goosan markaasuu waan ka gaadho markiiba calooshii ayaan ka soo riday sidii baan ku dilay ninkii baa waa macquul ninkii magaalka waa macquul ma hadaan gacanta ka goosan baa wanaagsantii annaa waan ku sheekeynayaa buu 4-6kii xabadi keentay baan cadan ka timi marka badan liha badaas ayaan marka baan waxaan la soconay buu dayuurad loo dhisay Eden Airways markaan marayna balbariya cadan dhexdeeda ayay dayuuradda gashay daruur adag ayay gashay way dhaqaaq way marka pilotka waa soo baxay aniga ninka la xooga ayuu min fadlakum waxaan ka baryeena inta degtaan dayuurada baalasha qabta oo riixa waana halay kale dumarkii yar waxay saaraba nagu wada qayliya walaalayaal riixa walaalayaal waan degnay buu dadna laba baal baan qaban isla leewar ku qabtay way fuqbay ful ma halkii dayuurada tus kii reer miga habad oo idina masuuliyadii ka dambeysay ayaan soo raacnay laba kala daran xikaayadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhaxa konton sheeko madasha aad ka heli kartaa ee aad ka daawan kartaa ee aad ka dhegeysan kartaa ee aad kala socon kartaa waa Somali News TV hay laabina ballanteena xusuusnaada kula jeed